soo gaaray gobolka Shabeellaha Dhexe ayaa sheegaya in xilkii laga qaaday Sheekh Yuusuf Ciise Koboko Dugada ninka loo yaqaano oo ahay gudoomiyaha gobolka Shabeellaha Dhexe ee uu qaabisan kooxda Al-Shabaab. Warkaan ayaa waxaa noo xaqiijiyay dadka deegaanka oo meelo badan kala jooga. Mar dhawaayay markii isbedel lagu sameeyay degmada gobolka Shabeellaha Dhexe loona magacaabay gudoomiye cusub kaasoo lagu magacaabo Daahir Cali Absuge. kadib markii gudoomiyihii hore ay isfahmi waayeen dadka degmada sida la sheegay ka bacdina xilkii laga eriyay. sidaas ayaana loo magacaabay gudoomiyaha Daahir Cali Absuge. warar kala hadda soo baxay ayaa sheegaya in dhammaan la bedelay gudoomiyihii gobolka Shabeellaha Dhexe Sheekh Yuusuf Koboko Dugada oo in muddo xilkaasi hayay wuxuuna xilkaasi ka hayay sida la sheegay gobolka Shabeellaha Dhexe intii ka maamulaan Al-Shabaab iyo gobolka Galguduud intii ka maamulaanba. wuxuu ahay nin si weyn dadka deegaanka uga yaqaaniin waxaana xilkii laga qaaday. warkan ayaa waxaa noo xaqiijiyay dhowr iyo 10 qofood oo dhammaan gobolka Shabeellaha Dhexe ku sugan oo si hoose u wareysanay waxayna noo sheegeen qoftii lagu bedelay inay wali hayn balse xilkaan uu jiriyo. isbedelkan ayaan la helin wuxuu ku saabsan yahay iyo sababta soo dedejisay. halkan ka daalacda mar walba fadlan booqdi YouTube Rungood Media page ka like siiya si uu faafo dhammaan asxaabtina sharafta leh.